arooskani oo ka dhacay xaafadda Township waaxdeeda Buruburu ee magaalada Mandera ayaa noqday mid si aad ay u hadalhayaan shacabka reer Mandera oo iyagu aanan horay u arag aroos noocan oo kala. Cabdullaahi Ibraahim Robow Cabdullaahi Wayway waa arooska 80 jirka ah ee aroosay haweeneyda 60 jirka ah, waxa uuna arooskaasi hab maamuuseedkiisa la mid ahaa aroosyada caadiga ah ee loo dhiga da'yarta Soomaaliyeed, walow la oran karo meelaha qaar waa uba ka sitay. Cabdullaahi Wayway oo aan maanta hoygiisa ku booqday ayaa waxaan wax ka weydiiyay shucuurtiisa ku aadan arrintaani. marka alxamdulillah laba soo iyo 12 rafaad unba meesha Mandera dhax joog. alxamdulillah ilaahay way dhaamay ilmaha aan dhaliba baari ilaahay ilmaha gabadh ii wiil way duubteen guri way dhiseen. alxamdulillah raaha adduunku waa heli. waxaa tiri 80 jir baan ahay, marka gabadhaad aroosay meeqa sano jir waa? 60 jir. waata 60 jir baad aroosay. waa sheeko Soomaalida markay dhageysato aad ay ula yaabayaan. maxaa kugu dhaliyay ma taqaanaa inaad guursato waqtiga? rafaad meesha waa rafaad dhibka meesha ku rafaaday haasan ku guursaday. gabar baarin waa heli waa nasadi. alxamdulillah ilaahay khayr siya aniga waa noolaadi markii meesha ku guura noolaashi iyo barwaaqoon baa ka dhacay. iskaabulka rafaadka oo waa ka baxay. aniga waa yeel waaye tan ay fiican. adduunka wax allah wax ka maqan ma leheb. adduunka rafaad waa ka baxay. hore waa loo arkay nin da ah oo gabar yar guursado, laakiin Soomaaliyeed hadda way ku cusub tahay nin weyn oo da ah oo haddana qof la khayr ama ku dhow guursaday way ku adag tahay. marka Soomaalidaas maxaad u sheegaysaa? waxaan u sheegaa intii bacaadigay awal waa soo guursaday, gabar waa soo guursaday, gugay waa 80 jir, tan waa 60 jir. wax ilaahay abuurtay waxay tan ugu reysad gabar ma ku reysan. intaasi kadib waxaan makrofoonka la dhax qaaday bulshada magaalada Mandera oo iyagu arrintaani la yaab ku noqotay, walow haweenka arrintaani ay si aad ah u soo dhaweeyeen. naagaha hadday mar ay 70 ama 60 ama 50 gaaraan bay xaq u leeyihiin. naag yar oo iska dhaaf 40 ama 50 ama 30 jirta waa waqtiga ay ugu fiican tahay naagta oo in xaq u leedahay. laakiin naagaha naga reer Mandera waxa xuquuqdooda meel walba waa looga ciyaaray. waxaan dhihi lahay aniga qaas ahaan xuquuqdiina ha iskaga ciyaarina, xaqiinana ha iska burburinina. jacaylkana waa shay jiro, hana noolaado. maadaama aan nahay dhalinyarada ku nool countiga Mandera waxaa cariiri gelin doonaan u maleynaa sanadka soo socdo wiilasha 80 jirka ama duqowshaha sida loo yaqaan. dhacdadan waa dhacdo hadda qarnigaas 2017 aan ku jirno nagu cusuban, maadaama ayna jirin sida recordka ama taariikhda Mandera lagu hayo wiil 80 sano jiro iyo hooyo 80 sano ay jirto ayna isguursanin. maadaama ayna dhicin maanta ay dhacday, waxaan codsan lahayn madaxdeena sharafta leh inay barnaamijkaas kor u sii qaadaan hooyooyinka iyo aabayaasha oo isliidaya inay hurdada ka soo kacaan. laakiin runtii waa dhiirigelintii iyo tusaale fiican inay sidii dadka isku raacaan oo isku guursadaan, maadaama ay isku aqli yihiin, isku tala yihiin, isku fikirayeen oo cabsani jirin. amaan badane arooskii waa ahaade. amaan badane arooskii waa ahaade. arrintan ayaa ah mid si aad ah looga hadalhayo ismaamulka Mandera, gaar ahaan magaalada Mandera ee xarunta ismaamulka. waxayna shacabka reer Mandera siyaabo kala duwan jawaabo uga bixinayaan dhacdadan. waana markii ugu horeysay oo dhacdo noocan oo kale ay ka dhacdo ismaamulka Mandera inta taariikhda lagu hayo. maxamed sheekh maxamed rafagari, wararka STN magaalada Mandera.